بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته دواء كسر دواء برنامج كينا قحوها خميسته وبرنامج ما أنت خميسته أن رنتي أن داوداش أو تراك الله وحركسوا قاعدنا قصوين يو برنامج شكل الدوان قصة ما أنت وقصة هذا عجيبة waxaad ogaataa daawade qisooyinka aynu soo qaadano iyo dhacdooyinka waa xaqaa'iq weeyaan maaha mala awaal iyo khiyaali toona qisadan waxay ku saabsan tahay nin boolis oo baadha ah ayaa waxa uu soo galay saldhigii uu isagu shaqada uu ku qaban jiray ee uu ka shaqayn jiray waxaanu soo galay waqtigii loogu talagalay sawiin waqtigaasi uu shaqada la wareego shaqadii markuu la wareegay waxa uu yiri sida aniga dhaqani ahayd buu yiri waxaan sameyn jiray shaqada marka la wareego liiska ayaa waxa soo qaataa muxuu ahaay maxaabiista xidhan kadibna waxa sameeyaa buu yiri waxaan isu eegaa qof kasta isaga iyo magaca meesha ugu yaal qof inuu joogan xaqiijiya oo qof kasta waan eegaa magaciisa xaadiriya wuxuu yiri waxa igu soo baxay inaan Cabdullaahi la yiraahdo ayaa waxa dhacay magaciisa marka xaadiriyay maba joogaba maxaabiistii kale waxay ku yiraahdeen ninkan waa la qaadayo dacwad dalaaq dacwad furniin ayaa saaka maxkamadda loo geeyo xaaskii buu soo furay wayahay biir waxa ku yiri kiiska lagu haystaa ma baaha furniin dalaaq iyo guur toone waxa lagu haystaa waxa weeyaan khiyaano iyo forgery baa lagu haystaa waa maxay waa iska tagay buu yiri aduu wiilkii oo Cabdullaahi oo la soo wada markii dambe soo galay saldhigii kadibna wuxuu galay muxuu ahaayay qolkiisa xabsigii buu galay wuxuu yiri waxa dhaqanay ahaa runtii inaan maxaabiista aan runtii eego mid kasta xaaladiisa koob caafimaad darro ka cabanaya koob baahan inuu telefoon kula hadlo koob baahan waalidkiisa in lagu yeedho qof kasta xaajadiisa iyo baahidiisa ayaan gudi jiray buu yiri marka anoo kormeerkii ku jiraaba waxaan arkay inankii Cabdullaahi ahaa oo meel iska fadhiya oo sida mutarabbac u ah saan lagu hayo waxa gacmaha isu haysto oo aad u murgaysan oo soo kaxeeyay buu yiri xafiiskayga keenay koob shahan u shubay yiri kadib waxa ku yiri Cabdullaahi maxaa ka siiya waxa mushkiladaadu maxay tahay wuxuu yiri anigu waxaan ahay shaqaale banki ka shaqeynay ayaan ahay waxa dhacday yiri sanadkan markuu hadda u dhamaaday ayaa waxa yeeray maamulkii bankiga kadib waxay igu yiraahdeen 300 oo kun lacag gaaraysa ayaa kugu maqan xisaabtii sanadkan marka la xidhay qaybtaad ka shaqeynaysay maadaama cashier aad ahayd lacagtaada la xisaabiyay waxa kugu soo baxday 300,000 waxa ku yiraahdo lacagta ma qaadan mana lumin shaqo kuma lihi waxay soo gudbiyeen bay qaybta baarista ee CID da booliska kadib qaybtii waa ila kulmay waxay gura kiiska lagu haystaa waxa weeyaan waxa jiray sharikad bankiga lacag dhigan jirtay shirkadiiba waxa dhacday sanadka markuu hadda uu dhamaaday ayaa waxa ay lacagtay bankiga dhigtaan wuxuu ahaa 1,500,000 ayay bankiga dhigtaan waxay la yimaadeen risiidada cadaynta ahayd ee cadaynaysa in lacagta dhigtaan laakiin waxa soo baxday lacagta u taala intaaba inaan ahayn akoonka lacagta ugu jirta waa imisa 1,000,000 iyo muxuu ahaayay 200,000 bankiga arinta markay u la yimaadeen ay ku yiraahdeen cadayntii risiidkii aan lacagta ku qaadanana waa kan lacagta akoonka nagu jirtana way ka yartahay oo 300,000 baa dhiman bankiga uu yaabay kadib si aan u ceebabin soo asturo 300 baa la siiyay maadaama lacagtii ninka ay siiyeen shirkadii lacagteedii iyagoo isla yaana idin fadeexadeen de waxay yiraahdeen ninkii mas'uulka ka ahaa lacagtan ururinteeda ee cashier-ka ahaa ee lacagta ay u keenay shirkadan ay lacagta u dhiibi jirtay ayaa lacagta ku luntay sida darteed baad kiiska meesha lagu keenay oo kiiska lagu soo eedeeyay inaad 300,000 lacag aad qaadatay oo xatay wuxuu raxantii booliska waxaan u sheegay inaan lacag qaadan inaan bari ahay wax alla wax aanu meesha ka qaatay ma jirto wuxuu yiri boolis waxay ku yiraahdeen bankigu waxay qolada shariica bankigu waxay hayaan oo cadeyn baa la hayaa oo shirkadii lacagta meesha dhigatay markuu qofku bankiga aad lacag dhiganayso de waxa jira muxuu ahaay form dhigasho la yiraahdo formka lacagta ku dhiganayso rasiidna waxa qaata qofka lacagta dhiganaya min bankiga la siiya rasiidkii la siiyay shirkadda waxa ku qoran lacagta dhigtaan oo ah 1,500,000 oo waliba cadeynaysa adigu inaad ka qabatay laakiinse already
bankiga lacagtii ku dhacday intaa way ka yartay kiiska adiga lagu haystaa adigu wuxuu kiiska markuu ii sheegay ayaa wuxuu ii raaciyay arrin kaloo laakiin arrintaa igaga daran baa jirta oo waa maxay wuxuu risaaka waxa yimi maxay stationka waxa yimi saldhiga waxa yimi aniga aabahay iyo gabadhii aan qabay aan mehersaday aabaheed markuu yimi wuxuu igu yiri waxaan ogaaday kiis noocaas in lagu haysto inaad hantihaad dhacday oo bankiga aad ka dhacday anigana inantayda ma raba nin noocaas oo kala oo khaynayna guursado gabadhii inantayda waad furaysaa saa darteed baa saaka maxkamadda la geeyey oo qasab gabadhii layga furay arrinta aniga igu warwarka badan waa taas yiri adigu wuxuu yiri ninkii booliska baara ahaa dee arrinta waan arkayna iska cad waxba kama qaban kareen kadib waxaan ku ilaahay ku fududeeyay baan ku waan iskaga tagay wuxuu waxa dhacday buu yiri maalintii labaad ayaa aniga oo xafiiska fadhiyo nin aan saaxiibnahay ila fadhiyo ninka ila fadhiyo waa kuma waa ninkan Cabdilaahi lacagta lagu soo eedeeyay ninka kiiskiisa gacanta ku haya ninkiina telefoon buu qaraacay wuxuu qaraacay markaa Allahumma salli ala Muhammad in qayb kamida boolisku qaraacay uu leeyahay ninka Cabdilaahi la ilaahdo saldhiga waan ka wareejinayna xabsiga weyn baa la geynayaa maadaama dambigiisu culus yahay anta markuu telefoonka ku qaraacay dhigaban ku jooji inaar ninka kiiskiisa aad leedahay way ku caddahay oo waa dambiil oo halkaas la geenaya ma baadhay kiiskiisa xurina kiiskiisa waanu baadnayo ninkaas dambi waa ku cadi lacagtaasi waa ku cadda waxaan ku riba in yarsug bal horta in yarsug waan baxay Cabdilaahi baan dib ugu noqday oo meeshii ku xidhnaaba ka soo saaray Cabdilaahi baan ku yiri Cabdilaahi lacagtan miyaad qaaday samaad qaadan runta ii sheeg haddii aan lacagtan qaadan runta hadii sheegto oo ku difaacaya kiiskaagana ana la wareegaya Cabdilaahi wuxuu wallahi daacad baan ahay lacagtan u maarak waxa ku hadaba sidaa tay kiiskaaga ana la wareegaya oo baadis ku sameynaya waxa sameeyay ninkii booliska saaxiibka ahaa kiiska gacanta ku hayay ku soo noqday waxa ku roonay ninka kiiskiisa aniga igu wareej aniga baadis ku sameynaya waxaan aaminsan ninkaas inuu bariya adu kiiskii baa liigu wareej kiiskii markaan bilaabay ayaa waxa dhacday buu yiri Cabdilaahi baan u yeedhay Cabdilaahi waan ku Cabdilaahi dhageyso waxaad ii sheegaysaa waxaad iga warantaa subaxii markaad bankiga aad ka shaqeynayso maadaama cashier aad tahay sidaad u shaqeysaa Cabdilaahi baa ii sharxay sida u shaqeeyo bankiga qofku markuu lacagta uu keeno isagoo receipt isagoo form soo buuxiyay ayuu imaada lacagtina wada lacagta ka tirsadaa lacagta marka ka tirsado formku haya waa laba qaybood mid waa original midna waa copy kadib waan saxeexaa copyga isaga ayaan siiyaa originalka bankiga u reebaa kadibna bankigu markay maalintu dhamaato wuxuu isla eegaa formkii originalka ah lacagta ku qorneed iyo lacagtan dhigay meesha markay is yeeshaan khalaas سياسة مالك سمايا وحكون نكان يا شركات كسوه دعويسي ترى العقد معنا مقن يا العقد هذا كوكنا وحن شركات داس نبى العقد هذا بنكي كنا هل أوكليا أيا بنكي العقد أوديك شركات داس وحكون نكاسي ماضي ومالك سكوا إماتا مسدتك كلا أول حريرة وحن كليا بنكاسي إماتا dadka kale bankiga la ka shaqeeyay kaashirada ah uma tago wali markuu yimaado amaana waxa laga fiican baa tahay inuu wanaagsan baa tahay si fiican baa u shaqeysaa waxa la sugu yiraahdaa waxa ku yiri formkan uu ku keenay ee uu soo buuxiyay lacagtu ay ku qoran tahay formka lacagtu ku dhigayo dabadu kala imaada isagoo buuxiyay mise bankiga gudihiisa ku buuxiya wuxuu dabadu kala imaada isagoo soo buuxiyay iyo dabada kala imaada ana waan saxiixa اوكي باكو يري كيسكي وحبا يغا بخاي وان دقاقي بي يري بانكي بان تكي بي يري بانكي بان كي مامولاha kulmay waxa ku ridhayso waxa raba kamarada muxuu haayay in bankiga inaad ii eegtaan taariikhaha noocaasa taariikhii lacagta la dhigay shirkadaas lacagta dhigi jirtay cidii u dhigi jirtay iyo sida u dhigi jirtay baan rabaa inaan ogaado waxaan rabaa inaan ogaado oo cadeyn u helo ninkani formkan oo bankiga uu u dhiibayo in kan Cabdilaahi ee kaashiyerka inuu soo dibadda ka soo buuxsaday inuu bank gudihiisa ku buuxiyay in kamaradiisa kala saarto xaluur kamarada waqti bay qaadanaysaa leeso wax ku diyaarayna waa ka gudbo biyiri waxaan u tagay shirkadii laftigeeda dacwada qabtay shirkadii markaan u tagay waxaan ku yiri already bankigu lacagtii waa idin siiyay 300 ka dhow waa idin siiyay isagoo sumcadiisa ilaashanaya laakiin anu xaqiiqada raadinaya sababtoo waxa laga yaabaa nin dambiili inuu baxsaday mid aan bilaadan biina u jirka ku jiro marka xaqiiqada ay sheegaysan waxa ku ruuxad iga warantaan lacagaha sideebad bankiga u dhigataan
ninkii maamulaha baa wuxuu yidhi markaan lacagaha soo urursano customerska aan kasoo macaamiisha ka soo urursano waxaanu samaynaa waxa lagu wareejiyaa khaslajigu markuu lacagta ururto ayaa la qaadaa weliba nin xisaabiyaabaa qaado bankiga ku soo shuba waxaa ku yidhi waxaan u baahnay ninka xisaabiyaa iyo khaslajigiibaa waxaa lagu yidhi xisaabiya waa dhoofuma uu maqan yahay dibadda u baxay laakiin soo noqonaya khaslajigii baa jooga khaslajigii baa lagu yeedhay khaslajigii baa ku dhegeyso waxaad iga warantaa lacagta bankiga foomka lagu buuxinayo ee lagu dhigo yaa buuxiya foomkaas wii bix waayey buu yidhi ma garanaya buu yidhi libisaanu ma garanayo shaki baa ay galay buu yidhi bankigan marka hore kula wareysanayay waa ka qaado saldhigii baan geeyey saldhigii markaa geeyo arkay sheekadu inay serious tahay ayuu ii warramay wuxuu niyo dhegeyso horta foomkan ninka xisaabiyaha ah ayaa ka mas-uulo buuxiya laakiinse marka qaar ba anigana ii keenaa ana aan qaar u buuxiya weliba wuxuu igu sii daray buu yidhi arrin shaki dhalin kartaana way jirtaayo marka qaar ba foomkii anigu aan buuxiyey ayaa hadhow markuu ii soo celinayo ee lacagteetu ku shubo uu ii soo celinayo ayaa wuxuu ii soo celiyaa foom koobigiisii oon fartaydii aan ahayn arrintaasi shaki bay dhalisay arrintaas shaki markay dhalisay waxaan ku yidhi okay waa sax weeyaan ninkii meel baan ku xidhay waxaana ka qaaday telefoonku haystay waan ka qaaday waxaan rabaa ninka xisaabiyaha ee ka maqan inaan la xidhiidhin oon ora waa lay hayaa meel gaaran ku xidhay buu yidhi oon muxuu ahay telefoon ku hadli karin anigoo xuquuqdiisii kale sharcina ilaalinaya waxaa sameeyey buu yidhi ninkii allahuma salli calaa maxamed waxaa sameeyey buu yidhi waxaan tegay buu guriga ku noolaa ninkii xisaabiyaha ee maqnaa ayaan raadiyey waxaa ii soo baxday gurigaba inuu yahay sharikadan uu ka shaqeeya muxuu ahay dabaqa ka sarreeya dabaqii baan tegay waa xidhaye maxkamaddii baan ka soo qaatay ogolaansho baadhis in la baadho qolkaasi baadhisii baa ii soo baxday buu yidhi gurigii baan tegay uu qufla waan jebiyey buu yidhi caddayma la yaabaa ii soo baxa kiisku halkuu iska bedela waa halkan wuxuu waxaa ii soo baxay ilaa ninkanooba wuxuu samayn jirayba kaarta aad u layaab badan wuxuu samayn jiray foomiska ayuu soo qaadaa bankiguu ka soo qaadaa markuu ka soo qaado bankiga foomis maran buu ka soo qaadaa ninkan khasnajigaaba u geeyaa wuxuu ku yidhahdaa buuxiyo lacagta ku qor lacagta markuu ku qoro tusaale ahaan oo kale lacagta la raba in la dhigo 100,000 wey ka soo qaadba wuxuu rayaa 100,000 ku qor ninkii khasnajiga 100,000 buu ku qoraya foomkii markuu originalka ku qoro koobiguna ku daabacmaya uu qaadanaya muxuu samaynayaa isaguna hadda wuxuu soo qaadanayaa foom kale isla foomkii kaluu dib u buuxinaya muxuu ku qoranayaa halkuu kii khasnajigu ku qoray 100,000 isagu wuxuu ku qorayaa 80,000 buu ku qoranayaa 80,000 foomkiisii ma ku qortay kii khasnajigana 100,000 ma ugu qoran yahay wuu isweydaarinaya muxuu samaynayaa khasnajiga kiisii 100,000 uu ku qoray ayuu soo qaadaya wuxuu qaadanayaa koobiga xagga hoose ee 100,000 ku qoran yahay kiisag buuxina uu qaadayayo ka sare originalka ee 80,000 ku qoran yahay buu soo qaadaya labadaas isu saaraya bankigii buu tagaya bankigii markuu tago muxuu oranayaa foomkiiba u dhiibaya foomka waa maxay waa laba isa saaran waa koobi originalka sare maxaa ku qoran 80,000 koobiga maxaa ku qoran 100,000 ninkan bankiga jooga ee kaashiyarkii dee isagu markuu bahalkiisa isu saaran markuu sidaa ugu dhiibo intaa u dhiibana uu u sheekeynaya lacagtii 80,000 buu soo saaraa uu dhiibaya shirkadda imsuu ka soo qaaday 100,000 buu ka soo qaaday bankiga imsuu dhiibaya 80,000 ninkan bankiga jooga markuu sidaa lacagta u tirsado 80,000 muxuu eegayaa foomkii buu eegayaa foomka ka u sarreeya maxaa ku qoran 80,000 uu shaambadaynaya markuu shaambadeeyo kan hoose mabuu eegin isagu yahay kii hoosuu ka jarayaa wuxuu u dhiibayaa ninkan xisaabiya ahaa xisaabiyi kii hoose 100,000 ku qoraa buu qaadanaya shirkadii buu geenaya markaa shirkaddu maxay haysataa 100,000 ee kaashkay soo saartay risiidkeedii oo 100,000 ugu qoranta ayaa haysataa bankiga muxuu haystaa lacagtuu xisaabiyey 80,000 iyo kii sare iyo foomkii ugu qornaa muxuu ahay 80,000 ayuu haystaa lacagtii soo baxday imsaa soo xadhay 20,000 jeebku ku ridanaya ilaa ninka siyaasadaasu samayn jirayba gurigiisii markii la jabiyey baadhihii jabiyey wuxuu helay foomiskii buu helay wuxuu helay foomiskii ninkan uu ka tegi jirayba oo markuu ninkan xisaabiyo khasnajigu foomku buuxiyo ka originalka buu ka tagaa isagu markuu mid buuxiyana
ka koobigu ka tagaa koobiga ee originalkii gurigii wada yaala ayuu ugu tagay waxaa la helay waaba la xisaabiyeyba waxa la ogaadayba ninkanba ilan in khaa'inimada xagga ugu dambaysa uu samayn jiray oo formiska uu isku bedeli jiray un taa mid ka daran baa soo baxday oo maxaa soo baxay waxaa la helay formis kale oo lacag uu ku dirayo dibadda ugu diray reerkoodii oo imisay gaadhayaan markii xisaabaan la isu geeyey 300,000 ay ku dhawaadeen lacagta la raadinaya maqan ee luntay waa 300,000 300,000 la raadinayaba ilaa ninka waa dirsaday formiska cadayntii baa laga helay arrintaas markay soo baxday oo kiiska sida uu cad yahay ayaa formiskii wixii dhan baa la soo qaatay waxa la yiri hadaba waxa dhiman imika ninkii la helo haddii ninka la waayo ninkaasi soo noqon waayo kiiska waxa ku cada oo maxkamaddu ku qaadaysaa ninka xidhana Cabdilaahi Laarada miskiinka baa lagu qaadaya sababtoo isagu ku cadiya waxa lagu cadyahay de isaga ayaa muxuu haayay cadayntii waxa taala shirkadda lacagtii meesha dhigatay isna inta ku riday baa meesha taala lacagta marka ka maqan in isagu qaato ma eegtay ilaa in la helo ninkan baxsaday mooyaane hadda waxa ninkii waa tawadkiisa ku noqday maxaa la sameynaysaa loogu yeedhaa kaarta loo degay ninkii baaraha wuxuu ku yiri ninkii maamulaha meesha haystay waxa la sameynaa ninka degdeg baan ugu yeedhinaa horta wuxuu yiri goorma soo noqonaya waxa la yiri wax laga yaabaa ugu yaraan 3 uga biqaadanaysa ninka baaraha maxaa lagu yiri baaraha waxa la yiri way kaliya haysataa kiiska inaad ku soo gunaanado oo ninka madaxda ka way kaliya siiyay maxaa markaa ay dhacday waxa ninkii degdeg waa in lagu yeedhaa sidee lagu yeedhi karaa maxaa la yiri ninkii baaraha wuxuu ku yiri ninkii khasnajiga ee saaxiibka ahaayeen ee shirkadda ka shaqeynay wuxuu ku yiri saaxiibka baad la hadlaysaa waxaad ku oranaysaa waxa soo baxay position sare oo aad u muhiim ah shirkaduna adiga ayay ku siisay laakiin aniga waxa ku yiri waa ninkaasi ma imanaya aniga hala isiyo marka saaxiib miyaad imanaysaa oo position kaas qaadanaysaa mise aniga qaata inta ku dhagaalay saaxiibka la hadalo saaxiibkii buu la hadlay xisaabihi maqnaa saaxiibkii buu ku yiri saaxiib waxa jirta position baa ku soo baxay aad u sareeya shirkadda waxa ku yiri ninkaasi ma imanaya aniga hala isiyo marka ma imanaysaa mise waad iska joogaysaa wuxuu ma waan imanaya inta markuu ku yimid ayuu hadana kii markaa baxsiga ahaa ee xisaabiyaha telefoon ku soo dhuftay kii maamulaha haysta shirkadda sidoo u xaqiijiyo ninka wuxuu sheegay run ay tahay ila maamulahana waa loo sii sheegay markuu la soo hadlay maamuluhu wuxuu ku yiri way jirtaa arrintaasi position weyn baa naga banaanaday adana kuugu talagalay haddaad imika meesana waa lagu siinaya haddii kale cid kalena siinana hadda nimanaya biyo ninkii waa soo duulay markuu soo duulay ninkii booliska baadhay muxuu sameeyay madaarkiiba wuxuu markiiba ku wargeliyay ninka nooca iyo noocaas markuu soo galay soo dego in gacanta lagu dhigo isaga iyo team baa iska haystay waxa kale ka haysteen ninkii kale saaxiibkii ahaa ee muxuu ahaa khasnajiga ahaana waa la kaxeeyay madaarkii baa la tagay ninkii baa soo degay ugu soo degay qaybtii uu yimid waxa immigrationka waa la gartay waa la qabtay booliskii baa lagu wareejiyay ninkii baadhay khatarta markiiba gacanta ku dhigay wuxuu leeyahay xafiiskiisa wuxuu bilaabay inuu waraysto wuxuu ku yiri dambiga ma gashay lacagta noocaasa ma dhacday 300,000 baa maqan lacagta hadda la hayo 300,000 adigu ma qaatay maybe halka marka sheekadu marayso waxay noqotay marka xaqaa'iqdii cadaymihii in ninka fooda loo galiyo oo la hordhigo markaas is diibaya cadayntii koowaad baa soo qaaday Cabdilaahi baa soo qaaday oo ninkii la xiray ahaa Cabdilaahi waa ninkii kaashiyarka ahaa waa ninkii lacagta uu keenay jirtay waa kan la hadal wuxuu taagan yahay aniga lacagta diibtay intaas ay hal milyan 200 baa diibtay laakiin lacagta inta kale la sheegayo ima diibin u naxay haddana waxa la hor keenay ninkii khasnajiga baa waxa isla ku yiri lacagahaada ii keenay jirtay ismay lahayn foomkii aan ku buuxin jiray marka qaar baa waxa ii keentay forms anigu aan buuxiyay oo haddana cid kale ku qorantay kiina uu ka naxay cadayntii kale loo soo saaray waxa loo soo saaray kamaradii muxuu ahaayay bankiga oo cadaysay formiska inuu dabadaha kale iman jiray oo bankiga dhexdiisa aanu ku buuxin jirin tiina khatar bay ku noqotay haddana waxa la soo hordhigay gurigiisii formiskii wada yaalay waxa la soo hordhigay formiskii soo haray waxa loo cadeeyay formiska qaarna isagu buuxin jiray qaarna uu khasnajiga ka buuxin jiray kadib isku bedeli jiray lacagtana halka ka dhex saari jiray tiina aad buu ganax haddana waxa la soo saaray cadaynta tilmaamaysa lacagahu diray oo dhan oo ku dhow 300,000 inta marka la soo saaray ayuu isku dhex daatay markuu isku dhex daatay buu qortay dambigiisa buu qortay
dambiga anigaa sameeyey markiiba waxa la sameeyey isagii waxa loo xabsigii weynaaba loo diray kiiskiisii baa la gudbiyey ninkii Cabdilaahi xidhnaa ee dambiga lagu soo ogay lacagta aan qaadan miskiinka ahaana albaabka laga furay dabadu u bax Cabdilaahi baa iska tagay Cabdilaahi markuu tagay mudeer kadib dhowr casho kadib wuxuu la soo hadlay ninkii booliska baaraha ninkii buu saaxib dhageyso waa ku baahanay maxaad iga baahantahay waxa raba odaygii gabadha iga furay gabadhaas aad baan u jecelahay inaad ii raacdo oo tiraahdo ninkii waxaday maaha ninkii waxaday waanu qabanay diyaar baan ahay biyir ninkii booliska ahaa ninkii Cabdilaahi baa israacay odaygiina ta dhalay bay u tageen odaygiiba markaa ninkii booliska ku yiri ninkan Cabdilaahi ma qaadan kiiskaasna muu gelin cid kala gashay cidina wala qabtay ee gabadhii soo celi odaygii ku qancay waanu aqbalay Cabdilaahi baa intii la soo celiyay mudeer kadib Cabdilaahi ninkii booliska baaraha dib ula soo hadlay wuxuu yiri maanta waxaan rabaa meherkii aad ka soo qayb gasho inantiiban meherinayaa wuxuu meherkii hawshii arooska wixii ayaan ka qayb galay sidiiba sheekadu ay ku xidhantay dawada qisadana waxay tilmaamaysaa waxa la iraahdaa cadaaladdu waxay ka bilaamataa saldhiga ayay ka bilaamataa cadaaladdu waxay ka bilaamataa first information report-ka ayay ka bilaamataa FIR-ta waxa la iraahdo ee booliska saldhiga loo gudbiyo ayay ka bilaamataa halka haday ka leexato oo cadaaladda halka ay ka leexato ilaa halka ugu dambaysa laxankaasi waa ku jiraya halka loo baahay daba waa maxay booliska rugta qofka jooga qofka saldhiga jooga nin boolis inuu noqdo oo daacad ah oo aqoon sare leh waliba dadka sida gaarka loo rabo maxay dadka baarayaasha ka noqonaya rugta booliska iyo saldhigada booliska ka noqonaya waa baarayaal aqoon dheer inay noqdaan daacadna ah qofka meesha ku xidhanna sidii ay runtii cadaalad u waafajin lahayn in ay ka shaqeeyaan intaas ku soo koobayna. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.